aniga magacaydu waxaan ahay aadan dheer aligu dhahaa waxaan ku tirsanaan jiray al-shabaab aan ku tirsanaan jiray markaan ku tirsanaan jiray 11 jir ayuu ku soo biiray al-shabaab markaan ku biiray al-shabaab waxa liigu baray labo bilood waxa liigu baray dugsiga liigu geliyay labo bil ka baad shaqada liigu qabanayay markaan shaqada aan galay markaas aniga aamirkayga waxa aniga meel xool badan soo marnay wax badan dhibaatooyin kale oo soo marnay meel kasta dhibaato ariiray wax kasta oo soo marayaan hadda aniga maxaan ku tirsanaan jirnay jabhadii loogu yaqaano alkuus ayuu ku tirsanaan jirnay aniga maxaan soo goosnay hadda dhibaatada oo aragnay dhib badan oo aragnay markaan dhibaato badan oo aragnay aw naga soo xiriiray walaalahan markaan naga soo xiriirinaan markaas ku soo biirnay dawladda Soomaaliyeed markaan dawladda Soomaaliyeed ku soo biirnay si fiican baan naga soo dhaweeyaan walaalaheena si fiican naga soo dhaweeyaan walaalkeen loogu yaqaan oo Ahmed si fiican baan naga soo dhaweeyay jasaakumullahu khayra walaalkeen number baan naga soo xiriiriyay aswaan uu soo xaday alxamdulillah ilaahay baa maad iska leh oo markaas aan ku soo biirnay dawladda Soomaaliyeed dhalinyarada kale oo xagga la dagaalami jiray maxaad leedahay dhalinyarada waxaan fariin u dirayaa meel kasta ay joogaan oo al-shabaab ku jiraan dawladda Soomaaliyeed inay soo dhaweyso oo wadankeen oo ku soo biirno wadankeen aan horeysano al-shabaab wadanka aan ku saarno in baadil wadato aan aragnay al-shabaab wadanka aan ku saarno markaas waan fariin u dirayaa inay inta soo biiraan waxaan ku nacday al-shabaab waxaan ku nahay dhibaatooyin badan oo ariiri dhib badan aan soo mareysay lacag ma ka haysano wax kuma haysano wax dhibaato ariiri badan aan soo galiyay hadan waxaan ku soo biirnay walaalaheen aan soo biirnay hadan dhibaatada aan soo biirnay waa ina sheegtay al-shabaab waxyaaba ku nacday diin la'aanta qarxinta dadka muslimka ah dadka ay masaajidda ku dilayaan kuwa ay gowracayaan kuwa ay xoolahooda shacabka ku qaadanayaan shacabka masaakiinta oo ay gargaarka in la gaarsiiyo u diidayaan buundooyinka ay duminayaan beeraha ay xoogga dadka uga qaadanayaan waxa aad ku nacday inay sheegtay ayay ku celcelinayaan waxaan fariin u dirayaa al-shabaab inay baadil oo Soomaali oo baadil oo inay oo wax ku qaado wax ka xabso dhibaatooyin badan ayay dad maraysaa shacabka iyo dadkii kala shacabka meel kasta joogo meesha dawladda hadda degan tahay meel kasta oo dhibaato ka hayaan hadda magaaladan aan joogno dad badan oo ayuu walaalaha oo diinta iyo islaam badan ayuu qarax iyo waxaan ayuu ku dhameeyaan waxa loogu yaqaan waxa asaga la diin jecel oo jannada ilaahay asaga la ku balan qaaday ay ismaleynayaan ilaahay subhanahu wa ta'ala diin badan baan soo dejiyay ilaahay waxa uu yiri aseen maxaa muslimiinta qaraxay ma leeyahay ilaahay saas ma dhahin baadil oo naftiisa asig oo asqaraha baadilka asqaraha nafta qol way asqarahay dhibaataas ku naan muu waxaan leedahay waxaan waayay amiir isqarxi anaga rabaan inaan isdilno ayagana inay dhintaan ma rabaan waxaan fariin u dirayaa wax meeshan joogan dhalinyaro ah inay soo biiraan unka dawladda Soomaaliya aan ku soo biirnay walaaleen kuwa inaga dambeeyaan inay soo xiriirino meel kasta joogan oo al-shabaab ku jiraan dhibaatadaas inay ku soo baxaan moogay inay ku laabtaan ma rabna wax dhibaa meeshaas lagu hayo ilaahay wax dhibaato meeshaas jirto ilaahay dawlad baan iga soo dejiyay wadankeen aan horeysano wadankeen dhibaa ku hayaan dhibkaas inay ku qaadna ay rabnaa meeshaan ku soo biirnay ummadda waxa Soomaaliyeed waxaan weydiisanayaa meel kasta ay joogaan mar kasta ay dagaalam jiray waxaan oo aan soo dilay oo dad badan aan soo oo dhinacii soo aan soo oo dhibaateeyay inay iga dhaaftaan waxay oo ilaahay oo igu dhaaftaan ilaahay magangiisi aan ku weydiisto